السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وشمارك محمد علي مدح برنامج هون كابيتال نتورك. اللهم صل على سيدنا محمد. أصحابتا waxaynu eegi doonaa dhowr lacageeyo toddobaadkan iyo sidii aynu ula jaan qaadi lahayn inaynu qorshe kasii yeelano. allahuma salli calaa maxamed. marka intaanan u gudagelin waxaa idin ciddii aan ku xidhnayn markaa waxaa idin subscribe odhan kartaan youtube channelka home capital network, sidoo kale telegram channelka home capital network, iyo weliba groupka aan ugu magac daray shirmarka la shaqeyso, halkaas oo ay markaa wixii su-aalaha iyo sidoo kale signals free idin kala socon kartaan. ciddii doonaysa taageero intaa ka badan iyo allahuma salli calaa maxamed signals intaa ka badan, waxaa inay lacag samayso ugu filan si bilaasha inay account life ka furato iyadoo markaa raacaysa linkska muuqaalkan hoos yaala. brokerska linkiskoodu muuqaalkan hoos yaalo. allahuma salli calaa maxamed. account life ay ka furanayaan, lacagtoodii ku shubanayaan, noona inay lacag ziyaada oo kala bixiyaan, dabeedna signals free oo dheeraada baan usoo diraya. waayahay, inta aadan halkaa ku dhaafo waxaynu eegaynaa dhowr lacageeyo oo aynu ku bilaabayno. allahuma salli calaa maxamed. Euroyoung waxaa inoo muuqda priceku si xawliya buu kor ugu socday. allahuma salli calaa maxamed. deedna pullback buu sameeyey. waxa uu sameeyey priceku marka koowaad trend si awood leh buu kor ugu socday. dabcan waynu aragnaa, wayna muuqda kadhalka aadka u xoogan ayaa ka mid ah. allahuma salli calaa maxamed. waxa uu dabeedna sameeyey priceku zoonaha, masalan zoonahaasi waa zoone xoogan buu ahaa, zoone xoogan oo noqday markaa resistant ahaa. markaa resistantka kor buu jabsaday priceku, dabeedna pullback buu soo sameeyey oo ah inuu xoogaa dib isu saxo. resistankii uu jabsaday iminka waxa ay tahay maxay? pullback waxay tahay support bay noqonaysaa. sicirku aag resistant ah buu kor u jabsaday. allahuma salli calaa maxamed. resistanka mar hadduu kor u jabsaday waxa weeyaan mar labaad buu soo saxay, waayo zoono kaleba isna ku xiga. marka zoonahan hore resistanka ahaa markuu sicirku kor u jabsaday wuu isa soo saxay, haddana pullback buu sameeyey. pullbacka dambe waxaad moodaa zoonaha resistanka ahaa inuu iminka maxay noqonayo support, inuu support isu bedelayo. allahuma salli calaa maxamed. markaa sicirku aaggan uu joogo, aaggaa uu iminka joogo ayaan calaamadinayo, waxa weeyaan waa aag support ah. allahuma salli calaa maxamed. waxaa kaloo inoo muuqda waxa weeye markaa directionku waa bullish. waxa aynu aragnay inuu sicirku kor si xawliya uu zoonahan hoose iyadoo la moodayo in sicirku hoos soconayo, laakiin qoladii sellersku waxay awoodi waayeen inay halkaa sii dhaafiyaan sicirka. dabeedna allahuma salli calaa maxamed, durbadiiba markiiba sicirku uu soo noqday, dabeedna kor buu baxay oo ah direction bullish ah. zoonahaas oo resistant ahaana kor buu jabsaday, dabeedna pullback buu sameeyey. allahuma salli calaa maxamed. waxaad moodaa iminka inuu zoonihii resistanka oo kor u jabsaday oo iminka xajisanayo oo maxay uu ka dhiganayo support. resistankii wuxuu isu bedelay iminka aag support ah ayuu isu bedelay. waxaa taa inoo raacda waxa weeyaan 20% wixii ka hooseeya buu marayaa stochasticsku, dabeedna waxa weye aag extreme ah, aag ah waxa weeyaan ayuu marayaa oversold ah oo ah
indicatorkana wuxuu joogaa xaggii hoose joogaa. markaa waxaan filaaba maxay inuu xagga hoose ka yimaado. allahumma salli calaa maxamed. markaa zoonihii resistance ahaabaa iminka support ah. arrinkaa waynu haynaa. indicatorkan waxaanu haynaa inuu maxay zone isna meel joogo, meel fiican oo ah allahumma salli calaa maxamed. indicatorkuna wuxuu joogaa aag extreme ah, aag ah ilaa xad tilmaamaya markaa in shortku uu yahay ilaa xad iminka in wixii ka dambeeya laga yaabo inuu sicirku xagga hoose ka soo noqdo. allahumma salli calaa maxamed. marka directionku waa bullish, waxa socdaana waa correction. zoonaha resistance noqdayna support buu isu bedelay. stochasticskuna wuxuu joogaa aag fiican buu joogaa oo ina muuqda. intaa markaynu isu geyno allahumma salli calaa maxamed, waxaa inoo soo baxaysa markaa in euro yang inaynu kor u geli karro. marka aaga ay joogto baynu waxaanu ka baarbaaraynaa maxay sidaaba odhanaya buy, sidaaba odhanaya. marka allahumma salli calaa maxamed iikaadi. marka qaabkaad u gelaysa qof walba istaraatiijiyadaada ayay ku xidhan tahay. allahumma salli calaa maxamed. indicator kastaba isticmaal. waxa aad u gelaysaa maxay long. hadaad doonto trend line saa u sawiro marka uu allahumma salli calaa maxamed sicirku uu kor u jabsado uu xejisto kor u sii gal. haddaad doonto qaabka doonto allahumma salli calaa maxamed. haddaad doonto levelkaba ku gal, levelka uu yahay. waxa weeyaan qof walba iyo indicatorka ama istaraatiijiyadu isticmaalo. keliya waxa weeyaan directionku waxaynu isla ogaanaynaa directionku inuu yahay direction long ah. euro yang waxaanu ka warsugaynaa inaynu long gallo. hadday xitaa hoos sii socoto inagu short u raaci mayno. waxa weeyaan waxaanu ka war dhowraynaa maxay inaynu siiso maxay signal odhanaya markaa long. waaya allahumma salli calaa maxamed. masalan warkoo kala dahmaado zoonahaasoo kale hadda laga yaabo inay tijaabiso. zoonahaasoo kale inay tijaabiso sicirku weli iska tartiibtiisa iska sii socdo, laakiin zoonaha markuu gaadho waxaa laga yaabaa maxay inuu markaa ina siiyo signal odhanaya up, signal ah markaa bullish buy ah. waaya allahumma salli calaa maxamed. euro yang iyana intaasaynu kusoo koobaynaa. euro yang waxaynu kusoo koobaynaa intaa inuu priceku iminka waqtigan joogno uu ku guda jiro pullback, laakiin se fursad resistance-kii uu jabsanaa ay noqotay iminka support. deedna aynu ka war dhowrayno markaa signal ah sida aab odhanaya buy euro yang. waaya haddaan intaa ku dhaafo waxa weeyaan si clipku muuqaalku ugu soo koobnaado waan idin dul marayaa si dhaqso ah. iikaadi allahumma salli calaa maxamed. haddaan ku xejiyo euro New Zealand, haddaan ku xejiyo iikaadi euro New Zealand waxa weeyaan haddaan fogeeyo waxaa soo baxaya. haddaan fogeeyo waxaa soo baxaya maxay iikaadi waxaa soo baxaya priceku inuu joogo zone support ah. zoonaha supportka inuu joogo soo baxay. waaya allahumma salli calaa maxamed. markaa sicirku weligiiba hoos u soo socdo, markuu support zonekii soo gaadhay markiiba dib uu hayn waayo kor buu soo baxay. marka waxa uu qorsheynu yahay iminka pullback kasta uu sameeyo sicirku inaynu kor u gallo qaabkaasaan ku qiyaasayaa.
laakiin qorsheenaasi wuxuu burayaa haddii uu priceku mar kale uu hoos maro lowga hadduu hoos maro marka euro New Zealand mar kasta oo sicirku اللهم صل على محمد إيكادي mar kasta oo sicirku imika zoonahaas u jooga sicirku zoonaha waxaan daanu yara xijsanay zoonaha support ka dhiganayo marka mar kasta oo sicirku pullback inoo ka pullback yar waxaa laga yaabaa zoonaha inuu ku ekaado اللهم صل على محمد yeelko uu kasii hoos mari karaa waxa weeye qorsheenu wuxuu yahay euro New Zealand directionka aynu gelaynaa waa long directionka aynu gelaynaa waxa weeye pullbackgaasa socda pullbackgaas markuu dhamaado ee uu ku siiyo markaa qorshaha qaabka suuqa u gashaa ku siiyo signal odhanaya long idin long u geli doonta waayahay wax kale kumaynaan salayn waxaan ku salaynay priceku inuu joogo inuu kasoo falceliyey maxay kadib markii uu gaadhay zone support ah zoonahan aynu midabka hurdigaa ku calaamadnay oo ah zone support ah zone uu sicirka hore u tijaabiyey oo uu hore uga soo noqday in markii uu madaxa la galay deedna uu durbadiiba sicirka uu kasoo noqday markaa markasta oo sicirku pullback sameeyo waxaanu sii raacaynaa maxay kor baynu sii raacaynaa waayahay waxaan analysiskan ugu talagalay inaynu ku lafamagaro waxaweya sidii inaynu fikir ahaan directionka aad suuqa u raacayso marka iyagoo signal ah dabcan aan qayb ka mida toddobaadkii groupka telegramkan idinkula socodsiiyaa ciddii kale ee doonaysa markaa signals dheeraadana اللهم صل على محمد si direct ah ayay idinku heshaan waayahay اللهم صل على محمد haddaan ku xejiyo bond US waayahay iikaadi bond US iikaadi waxaa muuqata sicirku inuu yahay inuu joogo zoonahaas waa zoono resistance اللهم صل على محمد waxay zoonahaas oo dhan zone resistance iikaadi haddaan si kale idhaahdo waxaweyaan sicirku aagaasu ka soo noqday hoos buu soo noqday zoonahan joogaan waa zone resistance waxaa laga yaabaa pullback ba qabsoomay marka aagan waxaynu qorsheynu yahay signal kasta markuu sidaa binaga siiya ah short ah inaan short galno marka aragtideeda ku saabsan bond US waxaweyaan waa short in waxaa laga yaabaa inuu sicirku inuu hoos u sii socdo اللهم صل على محمد waxa uu sicirku hoos buu socday pullback buu sameeyey aagaas levelkaas u joogaa iminka levelkaas u joogaa aragtideedu waxay tahay inuu mar kale uu hoos sii soconayo bond USna iyana aragti waxaanu qaadanaynaa maxay ah bearish ah waayahay haddaan intaa ku dhaafayana اللهم صل على محمد iikaadi salaamana warkoo kale baa imaado waxaweyaan priceku hoos buu socday pullback buu sameeyey اللهم صل على محمد levelka oo cana buu joogaa waxaa suurtagal ah inuu hoos u sii aado inuu hoos soo noqdo qorshahaasi wuxuu burayaa hadduu priceku dheg jalaq inoo siin waayo oo uu kor u sii socdo ugu dambeynna uu kor u jabsado levelka uu kor u jabsado hayga ugu dambeeyay uu kor u jabsado
markaasoo keliya unbaa qorsheynaasi buriya. inta ka horeysa waxa weeyaan priceku markasta uu kor sii socdo waxa weeyaan wuxuuna siinayaa markaa level wanaagsan oo aynu hoos usoo raaci karnaa dhow. waayahay allahumma salli calaa maxamed. US Young masalan US Young oo kale waan gartaa US Young haddaan yar fogeeyo igaadi US Young waxaad moodaa zoonahan oo stiff ah oo soone adaga priceku markuu hoos mar qura uu u shalwaday oo dib u soo noqon lahaa zoonahan stiff bay ahaayeen waa zoone lagu loolamay oo adag priceku xawaaru kor uga baxay pullback buu soo sameeyey zoonihii adkaa ee lagu loolamay ayuu iminka support ka dhiganaya pullback. marka waxa weeyaan priceku wuxuu ku jiraa pullback waxa weeyaan waxa support u noqday zoonahan oo ahayd zoonahan oo hore resistance u ahaa oo kor jabsaday ayaa iminka support u ah. marka aragtideenu waxay tahay allahumma salli calaa maxamed aragtideenu waxay tahay in iminka uu sicirku uu ku jiro price marketka suuqu iminka inuu ku jiro pullbackgaasi hadduu doono xoogaa hoos uga sii socdo haddii kalena halkiisaaba ha ku ekaado yeelko levelada hadduu doono ha soo gaadho ama levelkaasoo kale ha soo gaadho allahumma salli calaa maxamed ama aaggiisa uu iminka joogaba wixii ka dambeeya waxa weeyaan qorsheen waxa weeyaan priceku waxaan ka doonaynaa inuu zoonahan uu naga siiyo sidaa odhanaya long waana kor raaci karo zoone lagu loolamay oo resistant ahaa buu priceku kor u jabsaday allahumma salli calaa maxamed levelkaasoo dhan buu kor u jabiyey dabeedna pullback buu sameeyey ilaa levelkii uu hore usoo jabsaday uu ka dhigtay markaa support. marka waxa weeyaan priceku pullback xaalad pullback buu ku jiraa xaalad uu isa saxayo oo uu xoogaa soo yaro jabay sicirku ayuu ku jiraa waxa ay qaabkan u hilaadinaynaa ama aynu u odrasaynaa waxa weeyaan inuu sicirku uu qaaliyoobi doono in US Young uu qaaliyoobi doono. marka directionka aynu gelaynaa waxa weeyaan aynu sidabka ka baarbaaraynaa waxa weeyaan toddobaadkan waxa weeyaan US Young inaynu galo long galo. waayahay allahumma salli calaa maxamed ina intaan ku dhaafo haddii aan ku xejiyo Bong Yang haddaan ku xejiyo masalan waxa weeyaan Bong Yang waxa weeyaan zone resistance buu joogaa allahumma salli calaa maxamed waxaweyaan priceku zoonahan oo dhan kor ha u jabiyo aaggaa markuu gaadhay uu soo noqday qaabka aanu filayna waxa weeyaan inuu pullback yar sameeyo deedna uu hoos sii socon karo isagoo marka xiga soo tijaabin kara aaggan oo kale soo tijaabin kara. marka aragtideena ku wajahan bonka iyo yanka Japanese-ka iyadoo uu bonka iyo yanka Japanese-ka uu bonku hoos u jabiyey allahumma salli calaa maxamed aragtideena waxa weeyaan
xogaa pullback hadduu sameeyo xogaa pullback hadduu sameeyo sicirku in mar labaad uu hoos sii socon karo. marka aragtidana Pyongyang ku aadan waxa weeyaan bearish, waa aragti bearish ah inuu sicirku sii jabi doono, bonku sii jabi doono marka loo eego yang. اللهم صل على محمد. ويعدان تاكو دافو اللهم صل على محمد. US card US card okay. US card US card zone xaas oo support ah buu sicirku kasoo noqday dhinaca marka laga eego. اللهم صل على محمد. mar kale haddaynu eegno waxa weeyaan priceku kor buu isu shareeray si xawli ah buu kor kadib markuu zoonihii supportka ahaa kasoo noqday sidaynu imika arkaynay markaynu zoomka aan fogeynay zoonahaas oo markii ugu dambeysay ah. markaynu la eegno waxa weeyaan اللهم صل على محمد sicirku zone support ah ayuu kasoo noqday deedna si xawliya buu kor u baxay isagoo markaa sicirku uu jabiyey leveladana kor u dhaafay. iminka pullback buu hoos sameynaya marka qorsheyn waxa weeyaan US card ku aadan waxa weeyaan sicirku inuu pullback yar haddii uu sameeyo inaynu kor galo اللهم صل على محمد. kaadi kuna warkoo kale kaalay priceku waxaa laga yaabaa inuu leveladan levelkaasoo kale inuu soo gaaro. marka xoogaa correction buu sicir ku socdaa inuu hoos u yaro saxo deedna aaggaa markuu soo gaaro waxaa laga yaabaa inaynu helo volume fara badan, dad fara badan oo markaa u diyaara inay long usii raacaan waxa weeyaan halkan si fiican baa buyersku si fiican waxa weeyaan way hagaagsanayeen buyers enough ahoo ku filan bay ahaayeen. waxaa laga yaabaa sicirku pullback yar buu galay marka haddii uu xoogaa soo yar jabo in haddana ay taasi dhiiri geliso in buyers kale ay halkaa kala qabsadaan oo deedna ay suurtagal tahay markaa in sicirku uu kor US card uu kor uu qabto oo uu qaaliyoobo. waayahay اللهم صل على محمد. markaa aragtideena ku wajahan US cardna waxa weeyaan US card waqti xaadirkan wuxuu ku jiraa pullback yar deedna directionka aynu u galayno ee qorsheenu yahay aynu ka baarbaarayno wuxuu noqonayaa toddobaadkan اللهم صل على محمد haddii alla idmo sida ab odhanaya long korun baynu u gelaynaa anagu kor ayaynu gelaynaa. taasina waxa ay buri kartaa oo keliya qorsheynaa inaynu kor gala wuxuu buri karaa oo keliya haddii uu sicirku mar qura hoos isu shareero isagoo bilaa joogsiya inuu hoos u shalwado mar qura markaasun bay ka shaki leedahay. اللهم صل على محمد. ugu dambeyntana uu lowgaa u dambeeya uu hoos u jabsado. waayahay intaasna taana ku dhaafaya US card. اللهم صل على محمد. haddii aan ku xejiyo pound haddii aan ku xejiyo pound Aussie kaadi pound Aussie isna
هذه وحويان بونوزي سعركو زونها هي support ku noqday zoonahaasi support buu noqday markaa dib uga soo noqday correction buu sameeyey markaa waxa weeyaan qorshe sida aynu hilaadinayna waxa weeyaan inuu sicirku imika correctionka ka bacdi inuu maxay inuu kor aadi doono inuu kor aadi doono اللهم صل على محمد يكادي مثلا هذا وانا وراك على هذا وي سجابسة وحويان أجا سجابسة سعر كل صعدة مرات كوركشن بسميه لكنse waxaad moodaa in si gaabisa uu sicirku direction ah bullish direction ah xagga sare inuu kor u soconayo buu socdaa sicirku laakiinse bullback markuu sameeyo waxaad moodaa inaanu si toos ah oo xoogan aanu markiiba kor ugu baxayn waxa weeyaan si gaabisa uu kor ugu baxayo taasina ka shakigeeda leedahay markaa si aynu taxadar u muujino waxaan sameynaa اللهم صل على محمد مثلا haddaan haygaas la eego waxa weeyaan waxaad moodaa markaa weli sicirku intuu trendlineka kor u jabsaday inuu xejisan markaa waxaynu ka dhow horsugaynaa trendlineka in kor u jabsado oo dabeedna xejisto dabeedna ka bacdi baynu kor raaci karaa taasunbaa ah qaab markaa taxadir ku jiro oo aynu kor u raaci karo aynu kor ula socon karo sicirka laakiin zoono waxa uu priceku ka soo noqday waa zoono hagaagsan iyo kaadi waa zoono hagaagsan oo ah zoono support ah zoono support ah marka si xawlihi buu kor u socday pullback buu sameeyey marka labaadna waxaan doonayaa inuu kor u socon karo ilaa levelada ka gaadho yeelka si gaabis u socdaa laakiinse waxaynu taa aynu kaga taxadaraynaa inagu markaa trendlineka wixii ka sarreeya haddii uu sicirku xejisto uun kor u gelaynaa inta ka horeysa waxay u baahan tahay markaa in aynu taxadar ka muujino waayahay اللهم صل على محمد markaa aragtideena bownozy waxa weeyaan bownka ingiriiska iyo dollarka Australia markaynu soo eegnay waxa aragtideenu ay tahay markaa in bownozy uu yahay bullish uu yahay oo aynu kor u gelayno iminka waxa socdaana ay yihiin correction yar oo اللهم صل على محمد inay correction yihiin ama kaa noqoto ama intaa yarba ha noqotee uu sicirku correction yahay waxaa suurtagala mar labaad correctionka oo mid weynaada noqda deedna ka bacdi unba sicirku kor laga yaabo inuu xagga sare qabto correctionkaasoo laga yaabo inuu sii weynaado waxaana dhici karta sidoo kale intiisa inuu correctionku intiisa اللهم صل على محمد وintuu trendlineka kor u jabsado deedna uu xejisto labadasiba oo suurtagal inuu correctionku noqdo muuqaalkaa yeesho iyo inuu noqdo correction waxaweyaan deep ah oo ilaa xad correction ah oo deedna ka bacdi oo aynu helno markaa sida ab oranaya in long aynu galno kadib markuu sicirku levelada usoo gaadho labadasiba kay doontaba ha noqotee waxaynu inagu kaga taxadaraynaa un inaynu maxay inaynu trendlineka sicirku markuu kor u qabsado uu kor u xejisto intuu kor u jabsado dabeedna retest ku sameeyo xejisto un inaynu maxay markaa aynu long markaasum baynu qaadanaynaa long waayahay اللهم صل على محمد
haddii aan pounds intaa ku dhaafo waxaan ku xejin lahaa kaadi euro pound kaadi allahumma salli ala maxamed euro pound waxaa inoo muuqata sicirku allahumma salli ala maxamed kaadi waxaweyaan sicirku zoonahaasoo support ah ayuu joogaa zoonahaasi waa support allahumma salli ala maxamed waxaweyaan waxaa inoo muuqata priceku weligiiba hoos usoo socdo support zonekii markuu soo gaadhay markiiba jawaab ka bixiyey oo waxa weeyaan degdeg buu uga soo noqday allahumma salli ala maxamed waxaa kaloo inoo muuqata sicirku waxa weeyaan imika zoonahaas aagaasu jooga levelkaas buu joogaa marka waxa weeyaan degdeg markuu uga soo noqday pullback buu sameeyey waxa aynu ku rajo weynahay inuu meelahan ka noqonayo kaadi allahumma salli ala maxamed waxa weeyaan waxaynu ku rajo weynahay inuu zoonahan aaggaa ka noqonayo oo uu ina siinayo markaa sidaa odhanaya long in koraynu si raacno anyway waxa weeyaan euro pound iyana waxa weeyaan priceku wuxuu ku jiraa pullbacka wixii ka dambeeya waxa aynu filaynaa inuu priceku uu kor u kaco sicirku uu kaco allahumma salli ala maxamed eurada marka loo eego boonka ingiriiska allahumma salli ala maxamed ugu dambeyntii waxaanu raacin lahayn New Zealand card waxa weeyaan iyana waxa priceku kor buu socday muddo si fiican kaadi haddaan zoom out iraahdo waxaa idiin muuqanaysa allahumma salli ala maxamed kaadi zoom out markaan idhi waxaa idiin muuqanaysaa aaggaa sicirku inuu joogo aaggaa maxay aaggaasoo aaggaa resistanka inuu sicirku joogo allahumma salli ala maxamed waayahay haddii kaadi aan soo dhaweeyo waxa weeyaan haddii priceku waxaa laga yaabaa inuu mar labaad hadduu sicirku kor usii socdo waxaa laga yaabaa resistanka halkii u dambeysay inuu markaa naflacaari uu gaadho wixii ka dambeeya markaa uu hoos usoo qabto haddii kale waxaa suurtagal ah taasi waxa weeya waa mid kamid a waa suurtagal waxaa kaloo dhici karta allahumma salli ala maxamed inuu sicirku bartiisaaba uu maxay uu bilaabo inuu short inuu hoos uu bartaaba ka soo noqdo allahumma salli ala maxamed masalan haddaan waxa weeyaan 1 hour ila imaado waxa weeyaan sicirku waxa uu joogaa zoonahaas oo ah level resistant ah waa resistant yar waxaa laga yaabaa levelka inuu sicirku markaa uu hoos uu kasoo noqdo levelka laftiisa uu kor u dhaafi waayo marka anyway New Zealand card directionka aynu raacina waa direction short ah asxaabta waxa weeyaan intaas aan kusoo koobaya toddobaadkan waxa weeyaan signals maaha signalska waxaan iskula socodsiinaynaa groupka iyo emailadiina cidii markaa iyadoo account ay u furan yihiin live waxaad yeelaysaan waxa weeyaan intaasaan kusoo koobayaa waxaad samayn kartaan wixii comments ah muuqaalkan haddaad istiraahdo uu ku anfacay xagga hooseedin wixii comments ah aad kusoo qori kartaan allahumma salli ala maxamed wixii su'aalaha
telegram groupka sharmaarka la shaqeysan u magac daray baa iga soo weydiin kartaan si guud iyo sidoo kale luuqa intaba emailkana waa iga soo weydiin kartaan allahumma salli calaa maxamed in aad suuqan haddii aad doonayso inaad lacag ka samayso simply waxaad samayn kartaa account live ayaad furan kartaa adoo ka furanaya markaa brokerska xogaya groupkana idin kula socodsiiyo muuqaalkana linkskooda ay hoos yaalo brokerska markaad mid ka mid ka furato account live ah deedna waxaad helaysaa maxay signals iyo taageero intaan ka badan intaas waxa weeyaan waa kugu filan tahay inaad suuqan lacag ka samayn karto nonin uma baahnid inaad signalskan ka bixiso waayo waxaad idin ogsoon tihiin inay brokersku ay kala horarsanayaan macaamiisha deedna ciddii markaa macaamiil u keentana ay maxay ay tacwiid u ogol yihiin ciddaana markaa weliba markay tahay ciddaasi cid ku hagaysa oo ku tilmaamaysa oo signals ku siinaysa oo waxweeyaan waxaa iyana wadan ah markaa inay suuqa aanad ka bixin oo aad suuqa kusii nagaato oo ay kusii taageerto markaa si ay kugu sii taageerto markaa maxay sidaas suuqa ugu sii nagaan lahayd allahumma salli calaa maxamed waana taataan idinkaga filin lahay intaasaan markaa waxba hadalka sii badan maa intaasaan kusoo koobayaa ugu dambeyntii waxaan leeyahay shaqo wacan waa sharmaarko idin leh wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu